الحديث 17. الإحسان في كل شيء. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الحديث 18. تقوى الله تعالى وحسن الخلق. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan qaadanaynaa xadiiska 16 iyo 17. haddaan ku horeyno xadiiska 17 iyo 18. haddaan ku horeyno xadiiska 17. إحسان في كل شيء. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه waxaa laga wariyey can rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaato, inuu yidhi: qaal ina allaha ale kataba wuxuu waajibiyey, wuxuu xukumay al ixsaana samafal calaa kulli shay, shay kasta in samafal iyo wanaag lagu sameeyo. fa idaa qataltum haddaad dilaysaan qofkii, tusaalehaan qofka dilay haddii loo dilayo, ama qof weyn oo guursaday oo guur hore soo maray oo sina ku dhacay haddii la rajminayo, fa idaa qataltum faaxsanu lqitla. qaala ina allaha ale kataba wuxuu waajibiyey, wuxuu xukumay al ixsaana samafal calaa kulli shay, shay kasta. fa idaa qataltum haddaad dilaysaan faaxsinu lqitla, dilka hagaajiya oo wanaajiya. sidii qofaa qof dilay, qofkiiba barhka lasoo taagay, qofkii uu dilay baa loo dilayaa. waa in qofkii si wanaagsan loo dilo. waidaa dabaxtum, oo aan yacniga tusaale ahaan qofku qof buu dilay, qori buu ku dilay, waa in la toogto isagana. laakiin waa inaan in laga soo ridin oo mar muxuu ahaayey lug laga jarin oo sila nafta aan lagaga saarin. saa weeye macnuhu. waidaa dabixtum haddaad bireynaysaan xoolahana faxsinu dibxa, bireyska xoolaha hagaajiya. waliyuxid axadakum shafratahu, midkiin markuu xoolo bireynayo intaanu neefka mindida ku qalin waa inuu afeeyo afka mindida, si neefka ay si fudud ugu jari karto oo aanu mindi dhilisa ku karkarin. waliyurix dabiixatii, hawna uga raaxeeyo, ha ugu raaxeeyo bireynta, oo neefka xoolaha nafta silciyaan lagaga saarin. rawaahu muslim. waayahay xadiiska xiga. taqwa allahi tacaala wa xusni lkhulq. can abi darin jundub binu junaada wa abi cabdiraxmaan mucaad binu jabal radia allahu canhumaa waxay soo wariyeen can rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilahi ka soo wariyeen nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee, qaala inuu yidhi: ittaqi llaha xaydumaa kuntum, ilaahay ka cabso meel kastaa joogto. watbici sayi'ata xasana, xumaanta iyo dembiga kaa dhacana wanaag ka dabageey oo raaci. tamxuhaa way tirtiraysaaye. wa khaaliqi kula dhaqan annaasa dadka bikhuluqin xasan, akhlaaq iyo dhaqan suuban oo wanaagsan. rawaahu tirmidiy
قال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. way haddii aynu u nimaadno faa'iidooyinka iyo axkaamta xadiistan laga qaadanayo haddana ku horeyno xadiiska 17aad waxaanu xadiiskan ina barayaa number 1 naxariista diinta islaamka. qofkii qof dilay waa loo naxariisanaya haddii loo dilayo. neef xoolaha xataa haddii la beranayo waa loo naxariisanaya, nafta waa looga raaxaynaya. waxay ku tusaysaa naxariista diinta islaamka, sida ilaahay addoomihiisa ugu naxariisanayo, xataa mawaashiga sida loogu naxariisanayo. waxaan ka baranaynaa in shay kasta cidda samaynaysa ay noqoto cid aqoon u leh. xataa bereenta laftigeeda waa in qofku dee aqoon u leeyahay oo waxa weeyaan neefka qofaa garanayo si fiican u karkaraya, midida soo hafaysanaya, waxa weeye nooc min xirfad weeyaan. marka wuxuuna barayaa xadiiskani muxuu ahaayey sida ilaahay addoomihiisa ugu naxariista. haddaynu nimaadno xadiiska labaad, waxaanu ka qaadanaynaa islaamka iyo akhlaaq wanaagiisa, sida islaamku uu u dhiirigeliyey akhlaaqda wanaagsan. marka akhlaaqda hagaagta wax kastoo kale hagaagan. bulshada markay bulshooyinku burburayaan inay burburaan waxaa ka horeysa akhlaaqdooda inay burburto. duul kasta markay akhlaaqdooda burburtay buu ilaahay halaagay. sidoo kale iyaga dhexdoodu wadamada dunidu waxay hadba u kala horumar fiicnaadaan siday u kala akhlaaq fiican yihiin. wadan kasta marka akhlaaqa xaggiisa laga soo galo, xirfad kasta iyo horumar kasta haysto, maalinta akhlaaqda laga soo galo kadib uu burburaa. marka waxaan iminka xataa wadamada reer galbeedka ee horumarka sheegta, markii maanta akhlaaqdoodu ay burburtay, hoos u dhac bay kusii socdaan. waxaan kaloo xadiiskan ka qaadanaynaa ittaqillaha xaytama kunta. waxa weeye ilaahay ka cabso meel kastaa joogto. xadiis kalena soo qaadanay wacbudullaha kaannaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak. maadaama ilaahay meel kasta aad joogto uu ku arko, meel kasta, meel madow gal, buur hoosteed gal, good gal, buur dhalada uga bax, ilaahay meel kasta uu kula socdaa uu ku arka. ilaahay meel kasta aad joogto maadaama uu ku arkayo, deelaha meel kasta ku dalacanaya, naftaadu gacantiisa ku jirto, dee ka cabso. watabici sayi'ata alxasana. culimadu waxay isweydiiyeen qofku markuu salaada ka baxo saa uu asalaam naqsado, uu midig eego bidix eego, markiiba wuxuu dhahaa astakfirullah astakfirullah. salaadii way tukanayay. dembigan iyo dunuubtan uu ka istikfaarsanayo maxay tahay? culimadu waxay kaga jawaabaan qofku wuxuu ilaahay uga toobad keenaya intii salaada uu ku jiray naqsiga iyo gaabsanka salaadiisa ku yimi. bini aadan baa tahay, adigoo salaad ku jira laga yaabaa inaad ilbiriqsi fikirto baxdo. in ilaahay cibaadadii xaqa u lahaa aadan bini aadannimo ahaanba aadan gaari karin. marka adigoo cibaadaysanaya baad salaada kadib istikfaarsanaysaa si aad ilaahay ugu toobad keentid nooc min salaadaadaas khalaadka ka dhacay. marka waxa weeye waxaaba kasii markaa awleysan markaad dembi caadiya gashay, adoo cibaadaysanaya markaa sidaa tahay, markaad dembi gashidna dee wanaad ka dabageyso muxuu ahaayey istikfaar iyo toobad iyo camal wanaagsan. marka waxaan ka qaadanaynaa in markasta qofku uu camalka wanaagsan uu ku dadaalo, in markasta qofku istikfaarta iyo toobadda uu dabada hayo. wallaahu aclam.